Halkani waa warbaahinta Soomaaliya. Waxaa si toos ah u daawanaysaa barnaamijka Faalada Toddobaadka. Annagoo ugu hadli doono waxyaabihii ka dhacay Soomaaliya kuwoodii ugu muhiimsanaa. Qodobada barnaamijka Soomaaliya oo cadeysay mowqifkeeda ku aadan khilaafka Masar iyo Itoobiya. Macwiisli oo shabaab xarumo cusub kala wareegay. Puntland oo jiha weerar siyaasadeed gashay. Go'aankii xiritaanka hawada Soomaaliya oo ka badbaadiyay Somaliland caabuqa coronavirus. xubnaha baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la shaaciyay iyo beesha Hawiye oo qoonsatay saamiga la siiyay guriga madaxweyne Shariif oo ciidan lagu wareejiyay. Soomaaliya oo heshay qalab casri ah oo lagu baaro cudurka coronavirus. Soomaaliya oo diintii laga cafiyay saameynta cudurka coronavirus ku yeeshay Soomaalida ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan ka codsanayaa inta aan guda galin faahfaahinta warka haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biiro subscribe dheh sidoo kale inoo muuji calaamadda kiiritaanka ee like si aan ugu faraxno hore ugu socono waad mahadsan tahay. Qodobka koowaad ayadoo dowladda Itoobiya ay sheegtay inay cadeeyaan dowladaha Djibouti iyo Soomaaliya mowqifkooda ku aadan xiisadda biyo xireenka ayaa waxaa wax laga weydiiyay arrimahaasi wasiirka arrimaha dibadda Cawad. Wasiirka ayaa sheegay inay Soomaaliya labada dalba ay xiriir dhow la leedahay isla markaana ay qaadanayso go'aan dhexdhexaadnimo ah ayna ka qayb qaadanayso dhexdhexaadinta isku soo dhaweynta labada dal. Waxaa kaloo wasiirku sheegay in aanu Soomaaliya cidna u meerinin go'aamadeeda. Qodobka labaad ciidamada Macwiisle oo ah ciidamo iskooda isku abaabulay kana dagaalama qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay Al-Shabaab ka soo hoyeen guulo waaweyn kana qabsadeen deegaano dhowr ah. Macwiisle ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka iyo maamulka Hiiraan oo aysan wax taageero iyo caawinaad aysan ka helin. Mid kale waxay fariin u direen taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawa ayagoo sheegay inay yihiin ciidan Soomaaliyeed loogana baahan yahay inuu ka warqabo soona booqdo. Qodobka saddexaad bishii Oktoobar ee sanadkan ina dhaafay madaxweyne Deni waxaa magaalada Boosaaso kula kulmay inta badan xildhibaano laga soo doortay Puntland kuwaas oo u sheegay inuu ka baaqdo safarkiisa Kismaayo kaasoo dowladdu xanibtay. Deni waa uu diiday waxuuna noqday qofkii koowaad ee jabiyay amarka dowladda. Mar kale waxaa fashilmay wadahadallo telefoon oo u dhaxeeyay Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya arrimo siyaasadeed awgooda. Waxay arrintu sii socotaba madaxweyne Deni wuxuu 7 Febraayo ku dhawaaqay furitaanka shirka wadatashiga ee Puntland 15 Maarso. Furitaanka shirka Deni wuxuu khudbad ku dhaleelay dowladda federaalka inaysan wadahadal diyaar u ahayn balse ay Puntland ay doonayso inay gobol dhigato sidii ay labada dhinac uga wada hadlaan. 19 bishani wuxuu sheegay inuu tagayo Muqdisho si ay madaxda dowladda u wada hadlaan abuurana jawi ay dhinacyada dhami ku wada hadli karaan. 20 bishan qaar ka mid ah wasiirada federaalka oo ka soo jeeday Puntland shir ay ku qabteen Muqdisho ayay ku soo dhaweeyeen imaatinka Deni balse waxay kaloo eedeeyeen qodobo ka mid ah kuwii ka soo baxay shirkii wadatashiga Puntland kuwaas oo ay sheegay inay baamirsan yihiin dowladnimada dalka. Isla maalinkii xigay wasiirka arrimaha gudaha Puntland Dhabancad iyo wasiiro kale ayaa sheegay inuusan Deni ugu socon Muqdisho wada hadalka dhanka dowladda federaalka Soomaaliya laakiin uu u tagayo si loo wada tashto balse waxay ka warwareegeen cid uu la tashanayo oo Muqdisho joogto taasoo burinaysa hadalkii Deni ee Khamiista. Mar kale hadal uu sheegay madaxweyne Deni laguna faafiyay barta gaarka ee Puntland ayaa lagu sheegay inaysan raalli ka ahayn hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya. Kala hadalka iyo jihawareynka siyaasadeed ee hadda dul hoganayay Puntland ayaa loo arkaa mid abuuri kara kala qaybsanka ku yimaada gudaha siyaasadda Puntland. Dad badan ayaa qaba shakiga ah in hogaamiyaha Puntland uu ku shaqeynayo fikradaha dad ajaanib ah. Qodobka afaraad kadib xiritaanka hawada Soomaaliya ayaa diyaaradda Fly Dubai oo sida rakaab kuna sii jeeda madaarka Cigaal ee Hargeysa laga celiyay hawada Soomaaliya taasoo markay dib uga laabatay Dubai laga helay qoys Soomaali ah oo qaba coronavirus kana yimid dalka Mareykanka. Somaliland ayaa eedeymo u soo jeedisay Soomaaliya laakiin waxaa alle aawadiis loogu badbaadiyay musiibo aysan maaro u helayn. Qodobka shanaad 19 bishan ayaa guddiga xulista baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay liiska xubnaha baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed kaasoo gaaraya ilaa 95 xubnood oo ka soo kala jeeda beelaha dega Koonfur Galbeed. Beesha Hawiye oo qoonsatay saamiga la siiyay ayaa waxaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed xildhibaano iyo wasiiro ka soo jeeda beesha Hawiye ayagoo sheegay inay si diiran loo soo dhaweeyay shirna uu u socdo oo ku aadan arrintaasi.
Qodobka 6 maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa lagu arkay ciidamo hubeysan oo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee Haramcad, xarunta madasha xisbiyada ahna hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed oo laga cabsi qabay inay weeraraan hoyga madaxweynaha. Horaan waxaa jiray amar ka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawa laguna yareeyay ilaalada madaxdii hore ee dalka. Arrintaasi oo walaac abuurtay iyo ciidamo hor leh oo ka soo muuqday hoygooda. Waxaa ka jawaabay wasiirka amniga Soomaaliya kaasoo sheegay inay madaxda dalka soo martay ay mudan yihiin qadarin iyo xushmad kana mudan yihiin cid walba oo Soomaali ah, mana jiraan ayuu yidhi cid weerar ku ah dadka Soomaaliyeed aysan aaminin barabagandada la wareejinayo baraha bulshada. Qodobka 7 waxaa Soomaaliya soo caga dhigatay diyaaradda Ethiopian Airlines oo sida shixnad ay ku jiraan shaybaaro caafimaad iyo waxyaabaha lagula tacaalo cudurka coronavirus, kuwaasoo dalka China ugu deeqay dalalka Afrika. Agabkan oo ahaa mid aad loogu baahnaa ayaa waxaa dowladda China ka guddoomay wasiirka gaadiidka Soomaaliya ee Omar. Qodobka 8 Bangiga Horumarinta Afrika ayaa shaaciyay in Soomaaliya laga nadiifiyay deyntii lagu lahaa, deyntaasi oo gaaraysa ilaa $122 milyan oo dollar. Lacagtani ayaa waxaa Soomaaliya ka bixiyay boqortooyada UK iyo Midowga Yurub. Dhambaal ka soo baxay bangiga ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay calaamad u tahay dhammaadka cunaqabataynta Soomaaliya. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Wasiir Bayle ayaa yidhi dejinta deynta Soomaaliya waa bilow cusub oo u bilowday Soomaalida. Qodobka 9 ayadoo cudurkan coronavirus oo faraba'an ku hayo caalamka oo dhan, dalkeenana laga helay ilaa 2 qof, ayaa waxaa weli ka muuqan dalkeena dadaal ku aadan ka hortaggiisa. Dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay amaro lagu xakameynayo cudurka, sida in la joojiyo waxbarashada, duulimaadka, isku socodka dadweynaha, shirarka gaarka ah. Laakiin arrimahaasi oo dhan dhig jalaq looma siin marka laga reebo gobolka Banaadir iyo maamulka Puntland oo joojiyay waxbarashadii. Waxaa si caadi ah u socda ganacsiga, isku socodka dadka, shirarka. Gobolka Banaadir oo shalay laga helay qofkii labaad ee qaba cudurkani, lagana yaabo inay jiraan intaas in ka badan maadaama aysan jirin qalab caafimaad oo ku filan. Waxaa kaloo saameyn ku yeeshay cudurka Soomaalida ku nool dalka dibaddiisa, kaasoo gaalaftay in ka badan 16 qofood. Waxaa ka mid ah dad magac ku leh bulshada sida ciyaaryahankii hore xulka qaranka iyo kooxdii Batroolka Cabdulqaadir Bereg oo ku geeriyooday dalka UK. halkaasi noogu eg barnaamijkeennii toddobaadlaha ah ee Faalada Toddobaadka ee warbaahinta Soomaaliya. Haddaad ku cusub tahay kanaalka, ku soo biiro subscribe dheh, sidoo kale fiidiyowga like saar haddii aad ka heshay si ay noogu noqoto dhiirigelin.